kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo xubinteena xiisaha lahayd ee mikrofoonka wareega xiliyadan oo kale aad ku dhegeysataan barnaamijka marxaba ee ka baxa Radio Afriqiya 95.3 FM mikrofoonka wareega wuxuu idin leeyahay waxbarashada caadiga waxay ku dhaxalsiisaa nolol halka wax isbaridda ay ku dhaxalsiiso nasiib sidaasi waxa yiri Jim Mohan oo ah ganacsade Mareykan ah waxaan toddobaadkan xubinteena mikrofoonka wareega ku soo qaadan doonaa wax isbaridda horumarada xawaaraha sare leh ku socda ee dunida iyo horumarka dhanka cilmiga ah ayaa sahlay qaababkii waxbarashada waxa uuna casrigan aynu ku noolnahay la gaar yahay in aqoontu ay noqoto mid la heli kara isla markaana uu qofka wax isbari karo oo kaliya qofka waxa uu u baahan yahay aalad ku xiriirsan internetka kadibna hal klik ayaa u furi karta albaab badan oo aqoon ah waxbarashada akadeemiyada ah kuma filna sidii hore u dhici jirtay oo xilligan dadka waxa ay badankooda ku tiirsameen wax isbaridda dhanka suuqa shaqadana waxa soo ifbaxay shirkado qofka ku xiraya xirfad oo aan ku xirin shahaado waxaana xirfadaasi lagu kasban karaa wax isbaridda haddaba waxaan qaar ka mid ah dhageystayaasheena ku nool dalka Suudaan weydiimo ahaa hore ma u tijaabisay habka wax isbaridda waa maxay waxyaabaha aad isbartay muxuu faa'iido ah ayuu leeyahay habkan weydiimahan oo aan weydiinay qaar ka mid ah dhageystayaasheena ayaa waxay noqotay warcelintooda sida tan iska wax isku bar ama waxa kale nidaam tacliim zaati horay waan u galay waxa kamid ah waxyaabaha aan ka faa'iiday horta qofku kow inuu xorriyad u leeyahay ikhtiyaar al-masaadir inuu dooran karo labo inuu qofku maruna taxakum bil waqti ama waqtigiisa uu qofku yara control karo wallahi nidaamka iska wax isku bar waxyaabo badan oo ku xun yahay oo kaga xun yahay nidaamyada kale way jiraan wax lagu barto والله نظامك إسكا وحسكبر أنا ما دور بدين وحن دور بدا نظامك عادي ما دام وسن تفاعل جرين أنا وحنا شخص يدرع سن تفاعل ها هرو أنا قال وحن كيف إيدي ما كان إسكا يعني أد إسكا وحبرنا سو waxyaabo badan document badan baad ururinaysaa maraajiic badan baad ka akhrinaysaa marka iska wax u baro yani waxaan ku faa'iiday inaan hal mowduuc dhowr buug ka ogaado wuxuu ku xun yahay yani tacabkiisa aad badan iyo juhdiga aad gelinayso waxaan door bidayaa nidaamka iska wax u baro nidaamkaas horta waa nidaam muhiim ah oo inta badan inta uu soo baxay social media gaar ahaan YouTube-ka oo dadka fursado badan siiyay soo kale waxaan oran karnaa in qofka laga yaabo isagoo aan wixii dhammaysan ay waxyaalo kale ka soo dhexgalaan oo isagoo barnaamij ku dhex jira anigu aan door bidi lahaaba iska adigu isbar sababta ah qofku wuxuu dadaal gelinayaa inuu isagu shakhsiyadiisa wax soo saaro waxana ku barto kuna dadaalo hore waan u galay waxaan ka faa'iiday inaan wax badan aan barto amba waxyaabo khibradooda maqano fiican ku dhisto oo majaalo badan oo kale oo aanan markaa ahayn kan dhigto aan ka faa'iido wuxuu ku xumiyay waxaad diganaysid ama markaa waxaad diganaysid waxa laga waxyaabo qarinay ka qalbiyin qof ka qabanay ma jiro way ada isbaray naftaada baraya uu ka duway marka wax lagu barayo uu meeshii ka qaldan iyo meeshii aad ku saxsan doo lagu kala sheegay waxaan door bidayaa nidaamka caadiga waa hagaag dhageystayaal waxaad weli dhageysanaysaan xubinteena mikrofoonka wareega aan toddobaadkan ku soo qaadanayno wax isbaridda haddaba muxuu yahay habkani wax isbaridda habkani waa habku cusub dunida waxa uuna ka dhashay horumarada laga gaaray dhanka tiknoolajiyada iyo internetka waxaana lagu qeexaa in qofka uu istaago si madax banaani ah ama isku tiirsanaan ah inuu wax iska baro ilaha wax la iska baro sida internetka iyo warbaahinta isagoo markaasi ka kasbanayo aqoon xirfad iyo waayo aragnimo waxaana lagu tiriyaa habkan inuu yahay mid waaci ah maadaama uu ka dhashay rabitaan shakhsiyadeed kaasoo ku dadaalayo siduu u gaarsiin lahaa heer naftiisa una horumarin lahaa isagoo markaasi ka faa'iideysanayo aqoonta taala internetka muxuu faa'iido ayuu leeyahay muhiimadda ay leedahay wax isbaridda waxa ay leedahay muhiimad aad u ballaaran waxaana ka mid ah barashada aqoonta iyo kasbashada waayo aragnimo sida ugu fudud iyo qarash jaban iyadoona lagugu xirin waqti iyo meel in qofka wax isbarayo oo dooranayo waxa uu isbarayo waxaa sidoo kale ka mid ah in qofka la socon karo isbedelada casriga ah iyo la jaanqaadka tiknoolajiyada ilaha wax la iska baro meelaha la doonayo qofka inuu ku tiirsanaado maadaama uu wax isbarayo waxaa ka mid ah kutubada waxaa jiro tiro badan oo kutubo ah kuwaasoo soo baxa sanad walba iyagoo nooc walba iyo kuwa hore loo qoray oo yaala maktabadaha internetka waxaa ku jira koorsaad kuwaasoo lacag iyo lacag la'aanba isugu jira oo qofka wax isbarayo ka faa'iidi karo warbaahinta noocyadeeda kala duwan
sida kuwa qoraalka, maqalka iyo muuqaalka ah, goobaha aqoon isweydaarsiga, shirarka iyo khudbadaha, xarumaha cilmi baariska dawliga ah iyo kuwa madax bannaan. Ugu dambeyn, sidee ku noqon kartaa qof wax isbara? Waxa kaliya ee asaas u ah hawl walba oo lagu dhaqaaqo ayaa ah joogteen. Si aad natiijada ugu fiican uguna dhaqsiyaha badan u gaarto, waxaad u baahan tahay inaad joogteyso. Wax isbaridana waa la mid, waxaa sal u ah joogteen iyo go'aan adag. Guud ahaan intaas ayaan kusoo afmeerayaa xubinteena makrofoonka wareega oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay wax isbarida. Intaan ku kulmeyno xubintan tan xigta, waa anigoo ah soo saara xubinta Xasan Yuusuf oo idinkaga tegaya fi amaanillah.